caadooyinka bini'aadamka waxa loo qaybiyaa kuwo xun iyo kuwo wanaagsan. insha Allah haddii Ilaahay raali ka noqdo maanta waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa 7 caado oo xun oo nolosha keena dib u dhac. caadada koobaad inaad fashilkaaga dadka dusha ka saarto oo aad tiraahdo adiga ayaa sabab u ah fashilka arrintaasi. caadada labaad inaad isbarbar dhigto dadka kale oo aad tiraahdid hebel nooca iyo nooca ayuu yahay ee anna maxaan nooca u noqon waayay. haddaba walaalkayow alla subxaanahu wa tacaala qofba wax ayuu ku manaystay ee eeg nimcooyinka uu eebbe kugu galaday. caadada saddexaad kalsooni la'aan. kalsooni la'aantu waa albaabka koowaad ee laga galo fashilka adduunyada. caadada afraad ka tanaasulidda hadafyadaada oo waxa jirta qof walba waxa uu leeyahay ahdaaf oo waxa uu isleeyahay ka dhabee. kadib dadka qaar waxa ku dhacda marka ay noloshu ku soo xidhanto waxay hilmaamaan hadafyadii ay islahaayeen ka dhabeeya. caadada shanaad inaanad aqoon halka aad ku wanaagsan tahay oo dunida dadka ku wala nool ma jiro qof wax kasta ku wanaagsani oo alla subxaanahu wa tacaala qofka meel ayuu ku wanaajiyay. caadada lixaad wahsiga oo wahsigu waxa uu ku soojinayaa waxyaabo badan oo aad islahayd qabo sida aad u leedahay bari ayaad qaban saa dambe ayaad qaban ayuu waqtiguba kugu soo ururayaa oo ka dhamaanayaa. caadada toddobaad isla saxsanaanta oo qofka aan eegin afkaarta iyo fikradaha ay u soo gudbiyaan dadka kale ee tiisa uun raaca aakhirataanka fashil ayuunbuu ku dambeeyaa. ee fadlan wax kasta oo aad qabanaysid kala tasho cid uun. intaa ayuu ku egyahay muuqaalkeena maantu ee waa inooyo muuqaalka xiga ee baydankii.